كفوقانو مقادراتك يا وحيابها إلهي أوسان راليا كأهين وأن استعمالنا نسكدافنا بوليسكا gobolka banaadir iyo culimada qaarkood oo ka duulaya joojinta balwadaha maanka dooriya iyo muuqaalada anshaxumada ee lagu faafiyo baraha bulshada ayaa xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis waxa ay ka bilaabeen wacyigelin toos ah oo la siinayo dadka ka ganacsada maandooriyaha iyo kuwa joogteeyay isticmaalkiisa Boliiska gobolka banaadir oo fulinaya amarka Taliska ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ayaa aaminsan in xeebta Liido ay hoy u tahay balwadaha maanka dooriya sida uu ku dhawaaqayo madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta Boliiska Soomaaliyeed General Cali Xirsi Cali Gaab ay ka hooseeyaan caag qamri xashiish kaniini iyo wixii la mid ah ogow waxaad la mid tahay qofka cunaya oo kale sharciga qabanayaana ku qabanay ogow qof kasta oo ganacsanaya oo tasiilaad meeshaan ku haya oo laga helo muqaadaraadka aan rabno inaan la dirirno ama aan la dirinayno wuxuu la mid yahay qofka isticmaalay taliyaha hoggaanka howlgallada ciidanka booliiska gobolka banaadir sareeyo guuto Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay inay wacyigelinta sii wadi doonaan dhowr maalmood kadibna ay gacan bir ah ku qaban doonaan cidii sharciga u hoggaansami weyda annagoo fulinayna amarkii taliyaha ciidanka ee Boliiska Soomaaliyeed General Xijaar wacyigelinta saddexda maalmood wacyigelin baan wadaynaa wixii inta ka dambeeyana waxa la isla tagayaa sharci iyo maxkamad baa la isla tagayaa qofkii dambe oo lagu arko isagoo xayshad iibinaya isagoo qabri meesha ku dhex meelahan ku cabaya kan iibinaya iyo ka sita waxba isma dhaamaan midka cabaya iyo midka iibinaya waa isku mid waxba isma dhaamaan kiniiniyaashan biyaha lagu darayo ee gabdhihii Soomaaliyeed ee soo korayay lagu halaynayo oo maskaxdii looga bedelayo oo fiilmaan laga duubayo waa dhibaato jirta waay waxaas oo dhan ayaan rabnaa inaan ka hortagno haddaanu nahay Boliiska Soomaaliyeed taliyaha saldhigga degmada Cabdicasiis Xasan Dareewal ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho ka socdaan waxyaalo ka baxsan dhaqanka suuban iyo diinta islaamka loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo baabi'in lahaa dalkii wuxuu ku sii socdaa meel hog ah nabad guur ah waxaan diinta islaamka raad ku leen wax aan fiicnayn wax maxaan ku dhahay ilaahay u sarraale ka een ayaa waxay ka socdaan dalkeena Soomaaliya waxaan rabnaa si oo u badbaadino jiilka soo korayo iyo kuwa hadda taagan si aan u badbaadino waana wax u sheegnaa aan rabaa culimada odayaasha haweenka dhaqanka gabdhaheena fiican dhalinyarada dhammaan inay u istaagaan wacyigelinta looga hortagaya waxyaalahan shaxumada